oo aan diyaarsanayn iyada oo niyad u hayn ama wax baran karta ama se nolosheedii wali soo kamin ama jirkeedu uu la qabsan in lacag laga siisto nin weyn oo ama dibadda ka yimaado ama meel kale ka yimaado dalka jooga ama baadiyaha jooga waa wax dhaca mar walbaba arrintaas oo aad dhibaato inoogu haysay oo caqabado badan gabdho qaarkood istileen gabdho qaarkood tahriibeen gabdho qaarkood ay u galeen يعني وحيالك كلا مقاطرات يبلودو سي أي وجب حان مقصدان ينالشان لو خصبي أي سوء اللوسيان وحيالها صو تربضن إيو غير كاسو اسمه وايا أو غير كهالك كمان اسمه هذي قبل دي أيسن رالي هين نينكوين أبيه الله في الوقتري مارك كذي متشوقيو نيدي هذي نمر اسمه سو وحدا عيسين قبل داس نالشي كوريرتو ومستقبل كذي يقول كذي أي سبير تين وهلين حولها سيجو ترى وحاسوكر دي أو دبعتوين هذا نوعية odayaal waaweyn oo reerkoodii intay ku soo maartay dhameysteen waqtigoodii dibadda jooga inay intay yimaadaan gabar yar aroosaan oo gabadhii yareed inta aqal yar iyo hotel yar lagu arooso ama xataa guri la geysan laga noqonayo oo wadankii lagu noqonayo reerkiisii gabadhii uu qabay ama ay ka daba imaanayso tigid soo qaadanayso ka kaxaysanayso ama ay iyadii isagu soo noqonayno intaas ay one time use ay ahayd gabadhaasi lacagta yartaana meesha lagu fardhinayo gabadhaas yartaana lacagtii la baray markii xaq lagu noqdo laga goosanayo oo biilkeedii xataa aan la siinay oo xaq wixii ay u lahayd arrintaasi aad bay u badatay waxa kale qodobka saddexaad oo aad uga dacwoonayna wiilasha yaryarka oo dhaqan celiska loo keenayo oo gabdho yaryar oo cadarada hooyooyinkood wiilasha intay lacag siiyaan ay dhahaan kaale gabar baan ku guurinaynaa ay halkan keenayaan wiilashana ay jiran yihiin ama balwad ay leeyihiin gabdhihii yaryara oo halkan joogay oo nadiifka ahaa oo innocent-ka ahaa inta la arooso in qamrigii iyo xashadii ay xaq kala yimaadeen in laga bedelo inay gabdhihii baraan oo maanta gabdhaheeni dhaqankii magaalada iyo meel walba ay xumaatay oo darkaysid 6 saac ama 5 saac hadaa shirka soo baxdo gabar yar oo ad sileedahay 17 ma gaarin oo dhalada wadato magaalada dhexdeeda maraysa taasina waa dhaqan xun oo nagu soo kordhay waxaan ka codsanaynaa culimadeena iyo wasaaradda cadaaladda in ay iyo dawladaba iyo ciidamada booliiska inay qayb ka qaataan arrintaas bulshaduna ay ka soo dhiidiyo gabdhihii waa dhumeen arrintaas diin iyo dhaqanba waxba inoo dhimaysaa dhaqaalaheeni iyo ilmaheeni iyo gabdhaheeni la soo baray waxa intaas sanadood waxbarasho lagu soo waday oo hooyadii iyo aabbihii u soo dadaaleen inay u malaysay inay guur fiican heshay mustaqbalkeedii halkaas uu ku lumay gabadha yarta marka dadka yararka oo xagga laga keenay intaan gabdhaha loo guurin waa in meel loo furaa lagu dhaqan celiyo rehabilitation loo sameeyo iyagii laga saaro balwada korkooda ku jirta 6 months baa laga bixiyaa dadka iyo 1 year iyo Europe iyo meel badan baa istaala u furan oo rehabilitation loogu sameeyo oo laga dhaqo balwada marka bal waa in iyadana laga fakiraa dadka ganacsatada inay meelahaas furtaan oo dadka aan bal dhaqan celiska horta bal laga soo dhaqo waxa kan marka gabdhihii bulshadii lagu sii dhex